بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سو دواada asxaabteyda sharafta iyo qiimaha leh, waxaan rajeynaa inaad nabad qabtaan oo fiicantihiin maasha Allah tabaaraka Allah. Maanta waxaan rabaa inaan qiso inkaga sheekeeyo, qisadaas oo ku saabsan gabar iyo aabaheed. Qofka ay ku dhacda ayaana iiga sheekeeyay, run ahaantii ma ahan wax ku talokuteen ah. Maama ayaa wiilkeedu xanuunsanaa xanuunka xagga dhimirka ah oo special needka la yiraahdo. Marka waxaa dhacday inay wiilku madina uu ahaa inay hooyadii inay damacdo inay wiilka ay maarta wax uun oo dhalo gabar u raadiso. Maamaduna maama lacag la ayay ahayd, dhaqaale ilaahay siiyey. Marka waxay go'aansatay inay wiilkeeda maaragtay gabar u dhisto. Marka waxaa dhacday dad iska masaakiina waxaa jira dhaqaalaha u xiranaya oo gabadhooda markaas u oroosinaya oo maaragtay ama gabar iskaba ogolaanaysa iyadoo haddii bil fiican la siinhayo ninka xanuunsan iska ogolaanaysa jirta oo sidaa hadhowna ninkii xanuunsanaa ilaahay ubad uga reebayo hadhow maaragtay keer gareeya. Hooyadu sidaasay u fakartay. Hooyadii markaa sidaa u fakartay fakar xun ma ahan. Waxaa dhacday nin in adeerkeeda ayaa wuxuu ku yiri abbaayo anaa ku haya gabar aad eedda u tahay oo raalli ka ah wiilkan oo tiri wiilkan walaalkay anaa guursanaya ha laygu dhaqaaleeyo. Walaalo ma saas ahaa gabadhii hebla ahayd ayaan ku hayaa gabadhan wiilka ha loo dhiso. Marka ninkaanu beenu sheega wuxuu rabaa islaantan inuu lacagta ka qaato ayuu rabaa. Wuxuu yiri waana u sheegay wayna iga aqbashay. Marka wuxuu yiri arrintaas ka jiif anaa wuxuu yiri arrintaas ka huba gabadhayda ayaa diyaar u yiri wiilkaaga xanuunsanaya oo special needka inay guursato. Marka wiilku maskaxiyan uu u xanuunsan yahay laakiin muuqaal ahaan maaragtay waa nin dhaqdhaqaaqaya oo maaragtay maxaa muuqaalkiisa inuu xanuunsan yahay waa laga dareemaya, mana hadli karo hadal badan xitaa male. Marka gabar yar oo uu dhalay oo maaragtay markaas 16 sano iyo 17 sano meelahaas jirto dhowr iyo 10 jir ah ayuu wuxuu sameeyay maamadii u yimid wuxuu yiri gabadhii diyaaradan soo saara meel gobola ayaa maaragtay wiilku joogay. Waxaa dhacday inuu yiri maaragtay hadda waa ku kaasa reerkii iyo isku dubaridkii waa xaggaaga iyo yardihii iyo dadkii lacag $2,000 ayuu daf ka siistay way u dhiibtay tir wax ku soo samay oo wuxuu yiri hooyadeed iyo wixii dhan aan isku soo dubaridayaa. Gabadhana hooyadeed markaas wuu furay. Marka aabbayaal xun ayaa jira. Marka waxaa dhacday gabadhii inuu soo kaxeeyo oo yiri hooy aabbo maama wuxuu yiri nin ka yimid oo yiri Ameerika yaa ayaa lagu dhisayaa oo ku soo doonay oo wuxuu yiri naag u baahan. Marka waxaan rabaa aabbo waa kuu duceynayaa nakeen haya aabbo. Wuxuu yiri maamada gabadha yarona wax maaragtay reerka waxba kama aqoonin. Wuxuu yiri wiilka eedada dhashay dibadda laga keenay inuu xanuunsan yahay marka uma sheegin. Already meeshii gabadha lagu xirayo asagaa tagay asagoo maaragtay gabadhii matalaya. Wiilkii gabadha waa lagu xiray wiilkiina nin kala matalaya because wiilku mas'uuliyad ma qaadi karin banin xanuunsanayo ayuu ahaa. Wiil kale isna maaragtay matalay labadii nin baa isku matashay aroos khatara oo maaragtay kala jeeda ayay maamadii dhigatay farxad gabar caafimaad qabtaba aw waxay isla gabar kale special need iyo mid gaajeysan iyo wax uun u raadi ummadahaas wixii uun ku aqbalayo ma fahantay. Waxaan ku yiri lacag $2,000 ka badan ayuu inta ka qaato jeebka ku ritay isla markii arooskiiba markuu gabadhii ku ogaaday oo meherkiiba uu ku ogaado xiray. Aab wuxuu yiri waxaan ka soo noqonayaa Muqdisho ka soo noqonayaa uu yiri maca salaama waa ku imaanaya arooska wuxuu yiri waa kaasa. Gabadhana wili wiilka lama tusin yaa arooskii dig iyo dam hameenkii oo dhamaa waxaan ku yiri arooska la tumanaayo banaanburada adduunka waxaan ku wax isku dubadhaca aadan malay kareynin. Gabadhii waxaan ku yiri haf iyo bala waa la yiri oo habeenkii markii la hooynayay ayaa ninkii indhaha ku dhufatay. Waa kana la yiri ninkii ku aroosay markii wiilku waa maartay muuqaalkiisa ayaa laga dareemaa inuu xanuunsan special need uu yahay. Gabadhii wiilkii markay aragtay waxaan ku yiri kalar kale ayayba yeelatay nooc kale buu akaatay yaa ma ninkan ay guursanaya haa maya tir aniga aabahay nin xanuunsan iima u sheegin tir gabadhii waa labisanta taajka u saaran aqalkii in la geliyo ayaa ka hartay may bay tir anigu aqalkan geli maayo tir ninku baaduu ninkan yahayba gabar yar oo firiideyba ahayd ma sha Allah waayo aniga nin waxay tir Ameerika ka yimid la ii sheegay
oo maaragtay naagadoon ah ninkan xanuunsanaya ti aniga aabbahay iima sheegin maandhay aabba kuuma sheegin miya hooyadii waa qarracanta ma waan aabbahay ku sheegin maya tiri aabbahay anigu nin halkaas ka yimid aa lagu siiha ugu yiray tiri ninkuna wiilgiis meelahaas maba teginba oo xanuunka maaragtay wiilku isagoo yarow ku dhacay oo waddankiiooba joogaba maamadii qarracan gabadhii qarracan waxaan ku iri carradii dhan waa lasla wada qarracmaan ku iri waxaan ku iri wiilkii wax yarow oo fahmayo gabaraa lagu dhisaha la yiriyo asagii ruuxiisii maaragtay gabadhii waa ku diidda markii la yiri derbidow madaxa la dhacaasa waa nin xanuunsanaaye waxaan ku iri maamadii iska oyday waxaan ku iri asagana lacagtiisa tijaab ku ritay oo telefoonka ka dansada soo iska duula bal ka warrama arrintaas bal ka warrama aabba dhan oo gabadhiisii maaragtay xaqdarradaas ka galay hadhowna aabba isku sheegahaya bal ka warrama ninkaas bal iska warrama gabadhiisii miyousan iibsanin yaa wax milgaa uu ka leeyahy male asaga lacagtaas yartaaho markaas jeebkaasi ku dhacaysa ayuu fiirsanayaa he don't care mustaqbalka gabadhiisa yartaaho 12 jirka ah waxba kama gelin wixii guursaaya ha guursadeen marka aabbayaal badan hadday sabab 99% aysan ahayn shaqadooda maahan gabadha inay madaxa meel u geliyaan lacagna ay ka qaataan oo markaas ay suuqa geystaan oo iibsadaan sidii ri la gadan hayo ayay maaragtay jecel yihiin marka waxaa weeye aabbayaal noocaas oo kale ahaa dhooban waarid noocaas oo kale ahaa dhooban gabadha kolley waxaa la ii sheegay in hooyadeed inay dhimatay in kale ma aqaan laakiin in la furay miyaa ma aqaan kolley waxaa la yidhi hooyadeed meesha mana joogin waxna kama gelin laakiin waxaan idiin sheegahayaa arrintaasu inay arrin xaqiiqa tahay in aabbahaasu maaragtay gabadhiisa uu dembi weyn uu ka galay marka waa wax aad iyo aad u xun ninba waxaa la yidhi hadda ka hor hogaamiye ahaayoo jamhadihii iyo qoladii hogaami jirtay ayaa hadalkiisaan soo xusuustay ninbaa wuxuu yidhi caydiidaan la kulmay oo waqtigii dagaaladii markaasaan iriyow nin xun ayaa tahay caydiidow maaragtay siyaad barre 2 magac keliya ayuu baxshay adigu dictatorka ka daran ayaa tahay ninka la yidhaahdaa siyaad barre sabab uu yidhi waxaan iriyow yidhi war siyaad barre 2 magac keliya baxshay kacaan iyo kacaandiid ayuu dadkii u baxshay adigu laakiin 100 magacaad bixisay kan hebel balaayo maaragtay xaqudirar mujahaad maaragtay 4 jeeble war adu magacyo tiro badan markaas wuxuu yidhi wiil yaraa tahay ninka dara waa nin weyn laakiin waqtigaas nin yaroo ahaa wuxuu yidhi wiil yaraa tahay waxaad ogaataa uu yidhi siyaad barre nasiib ayuu lahaa laakiin dadka isagaa isku diray dadku markaas xukun ayay diyaar u ahaayeen laakiin isagaa dadka isku soo jeedsay laakiin dadkan anigu aan ku soo aaday dad la xukumi kara maahan midda kale waxaad ogaataa yidhi dadka iga dambeeyo yidhi meeshan ogodan leeyahay waa meeshan ummadda iga dambaydana waxay ogaa doontaa yidhi haddii ilaahay kusii camrigaaga dheereeyo wuxuu yidhi dhul gad dad gad gabar gad wiil gad carruur gad hooyo gad ayaa imaan doontou yidhi marka ninkan markaa arkay hadalkiiban soo xusuusto caydiid carruur gad gabar gad oday gad habar gad ayaa imaan doonta ciid gad calan gad ayaa imaan doontou yidhi ma garata marka ninkaas miyuusan gabadhiisa gadan inta gatay oo jeebka ku ritay eedadiis kama u xishoonin may in adeertiis kama u xishoonin gabadhii ou dhalana kama xishoonin in adeertiis iska badaaba qofkii miskiinka hayo xanuunsanaana kama u xishoonin gabadha inuu u bandhigay ahayd hadday ku qanacdo falilahi alxamdu haddii kale inuu dembi ka gala maahaneen marka waxaasoo kale ayaa aabbayaal ah waxaasoo kale ayaa maaragtay adduunka dhooban soomaali waa kuwaasaa gabdhahoodana kuwa u naxaaya maahan gabdhahoodana uma naxaan umana naxariistaan marka ilaahay ka yaaba ilaahay ka baqa hooy soomaaliyey ilaahay ha laga cabsado gabdhaha yaan dembi laga gelin gabdhaha mustaqbalkooda yaan lagu xadgudbin ma garateen ilaahay weynaayo waaxidka maaragtay tawfiiqda hana waafajiyo oo in laisku xishoodo oo ina carruurta aadan dembi ka gelin ilmahaagu ilaa fuuturkiisa ku ilaawi ooma oo noloshiisa ku ilaawi ooma oo mas-uuliyadda ilaahay oo kuu dhiibay oo ayaa dayacday adiga iyo kuwii ku ridi jira maaragtay ii sheeg iisheeg godka u qodi jiro oo carabtii jaahiliintaad ayaad la mid tahay maadaama mas-uuliyadda aad dayacdo gabadhaadii aad nin xanuunsanayo aad madaxa u gelinaysid ama nin 100 jira aad madaxa u gelinaysid adoo lacag leh fiirsanhaya oo wax kale aan fiirsanin mustaqbalka gabadhaada aan fiirinayn ayadoo yar qaara 14 jir gabadhaydaan ku sii ninkaan ma dhaqi karaa male ninkaan ma nin wanaagsana male gabadh marka waxaa weeye walaalayaal carruurta ku xadgudbinina gabdhihiina ku xadgudbinina ilaahay ka yaaba ittaqillah soomaaliyay aabbayaalku isku xishooda gabdho badan adan maalid waa arkaydan meeshan laga yaboohiya dadka gabar la yaboohinaaye
markii gabadhii ay la soo helay waxay tiri waxaan ka cararay tiri aabbahay dhibaato igu haayo subxaan allah in ilmahaaga oga cararaan dhibaato aad ku haydid waxa weeye ceeb waaye waa wax ceeb ah marka aabbayaalku ha isku xishoon dibna ha isku fiirsheen gabdhahana gabadha waa in aabbuhu soo dhawaysto gabadha iyo aabbuhu waa inay saaxiibo ay yihiin ma garateen aad iyo aada u mahadsantihiin jazaaka allahu khayr qisadaasaan idinkaga sheekeynayay ha laga digtoonaado aad iyo aad waxaan idinka codsanayaa channelka subscribe share comment like yaa u sheer gareedaas